extra money gan adisooba daaraha lagu dhisay hay ka timid waxa weeyaan lacagta askarta la siinay lacagta Soomaaliya lagu siinay Nairobi maxay ku dhisantay waa isli iyo maxay ahayd lacagta hay'adaha iyo maxay ahayd embassies kan iyo waxan oo NGO oo Soomaaliya ka shaqeynaysa oo Nairobi lacagta ku cunaysa wadamadan aynu qaadka ka soo qaadanayna ma cunaan yakay laakiin ay noo soo diraan wadamo aanan waliba ku jeclayn weeyeen inta badan waxa ay ku soo darayaan qaadkanimo ogin waxay noogu badan tahay hadda dhalinyarada waalan iyo waxaan waa waxyaabahan qaadka ku jira lagu soo herbicides lagu daray way maanta hadda Toronto halka dariiqa istaagtay oo Young Street ugu weyn Soomaa oo tiraada waxaan ahay reer hebel oo nin libaaxana oo reerkaygu waa cayn kana waa sida wasa maanta lacagta Soomaaliya loogu tala galay hadda qiyaasto waa billions of dollars way mid ma qaadanayno oo dawaanaka qalbaleena ugu cunaha la inagu hayo anu maalinta ka soo baxay dhibaatadii wixii kama hadlay laakiin waxa la yiri maxaan sameeynaa ma ka joojinaa lacagta sidoo ma joojinaysaa wadda faqiira lacagta ka joojinina maamul u sameeya na tusan sidoo maamulaysiin tii markaad sameyn waayo daba iska wada fariistay laakiin haddana lacagta budgetkaasi sanadka loogu talagalay Soomaaliya waa la cunayaa waxa lagu cunayaa hay'ad wallo oo wadankeeda ka timiday budgetka la siiyay dawladooda uga celinayso soo ma loo isticmaalaya consultants waa lagu soo dirayaa inta soo lacag la siinaya guriyo Nairobi lagu galayaa qaaliya iskuuladooda u diranayaan maxay hayday bal waxaad arag u fiirsataa xamar inta safaaradood ka furan inta safaaradood ee xamar inta safarada Soomaali leh ayaanu maxay ahayd ka furan xafiis yani Soomaaliya u dirnaa ambassador halkay joogan maxamar bay joogan Nairobi fadhiya kharashkii ku bixi lahaa safaradaasi ee shaqaalaheena isticmaali lahaayeen ee marketkeena wax kaga soo iibsan lahaayeen dawladeena ku raaci lahaayeen ee shaqaale inoo qoran lahaayeen Nairobi baa laga fariisanaya فهمتي هي أدها United Nations كيف فديها نيروبي سند كي نصور رافع وحنتي أفر وطن East Africa ونسكو ماري مركا delegation مالا سعودة كله وابوك هذا مسكرالة وحن سوا ماري دو أفر وطن وهاي هي أرزوبا دار السلام يوغندا كينيا يوغندا أفرتا ودبا سوا ماري waxaan u fiirsanayay dhaqaalahooda si isku bedelay dhaqaaluhu wadamada si isku bedelay Tanzania wax weyn kama arkaysid Uganda wax yaro extra wad aragtaa Nairobi markaad joogto iyo Addis Ababa dhaqaaluhu sidoo isku bedelay iyo waxa ka dhisan wax iyo waxa lacag wad arkaysaa lacagtaas inay tahay lacagta Soomaaliya way wadaqaaluhu wax weyn oo kale isma bedelin extra money gan adisooba daaraha lagu dhisay hay ka timid waxa weeyaan lacagta askarta la siinay lacagta Soomaaliya lagu siinay Nairobi maxay ku dhisantay waa isli iyo maxay ahayd lacagta hay'adaha iyo maxay ahayd embassies kan iyo waxan oo NGO oo Soomaaliya ka shaqeynaysa oo Nairobi lacagta ku cunaysa 2012 kii waxaan eegay budgetka Soomaaliya loogu talagalay 1.2 billion dollars waxa Soomaaliyana waxa gaadhay Central Bank $10 million $10 million out of 1.2 billion dollars حكي لعكت استكت دبدا lagu cunay Soomaalina cunin Soomaaliya cunteedin mani laakiin budgetku markuu ka soo baxo wadanka waa la cunaya kulleey inakina waxa laga 10 milyan isku yeelanayno laakiin waxa kale naga maqan uma jeedno taasi waa mid weey mid labaad markaad aragto statistics ka Afrika marka laga sheekaynayo ee wadan walba wuxuu soo saaro
GDP giisu intuu marayo dhaqaalihiisu halkuu marayo waxa dhaqaale laga hadlayo dhaqaale wax ku saabsan oo dhan maabka Afrika markaad eegto Soomaaliya waa blank blank waxa kuma qorna because statistics ma jiraan waa wadan conflict ku jira oo wadan iyagu isku maqan waxay soo saareen ma jirto dawladii waxyaabahaasina waxay important u tahay ma malayn kartid xagga dhaqaalaha adduunka because waa waxyaabaha lagu xisaabtamo wadanka in lacag la geliyo iyo in lacag la gelinin oo dadka lacagaha Afrika gelinayay markay Soomaaliya eegaan information bay ka waayaan ay arkaan Addis Ababa 11% growth rate leh halkay gelinayaan lacagta 11% growth rate ka gelinayaan Soomaaliya waa la bypass garanaya completely intaan Soomaalidu isku maqan tahay inna kala wala inuu maqan yahay rag baa noo tashanaya saynu baabina dadkan saynu uga faa'iideysanaa waxaan leenahay the longest coastline in Africa aan leenahay waxa wadankeena ku jira macdan cajiib oo malayn karayna oo maanta haddii aynu heshiino oo inuu dalkeena dhisano ay noqonayno Saudi Arabia bix noqonayaan wadankeena haysta dad baa macdantan arkaya coastline kan kalluunka ku jira iyo waxa ku jira arkaya marka raba inay ka faa'iideystaan hadda adu ka faa'iideysan weydo dad kala ka faa'iideysan maxaad ugu diiday dad ka faa'iideysan adiga hadana doonin dad doonaya jira waxa way adduunku waxa isku qabsadaan dhaqaale way mar at the end of the day marka dhaqaale lagu qabsanaya Afrika marka hore soo aragteen dhalinyarada waxa ku dhacay Soomaaliya joogta inay markay iskuul bay wada galayaan iskuulkii bay ka soo baxayaan jaamacad bay galayaan way ka soo baxayaan shaqo ma jirto bal markaad waalidka kula soo dadaalay intaas oo sanadood uu rajo wax la wuxuu lacag haystay wuxuu kharashii adigii ku galiyay eed ka soo baxday iskuulkii ee hadana guriga soo fadhiisato ilmihi maxaa ku dhacaya psychologically sidaa darteed badda iskugu tuurayaan maxay heeday oo ku dhimanayaan oo saxraaga ku dhimanayaan oo yaani filimada laga soo qabtay dad aragto caloosh ku xanuunaysa waa dhalinyaradii Soomaaliya joogtay weligii inta aan joogay ma ilaawin dalkan ka imaday waxaan ogaaday inta aan marayay meel darajooyin sare gaaray haddana waxaan ogaaday maalinta raahdo Soomaaliyan ka imaday in laga naxo xageed ka timid originally Soomaaliya way naxaan dadku already waxaad noqotay hoosba in the eyes indhahooda hoos u soo dhacday waqti anoo ku adkaystaa ha Soomaaliyan ka imaday wadan wanaagsan dad wanaagsan baan nahay dhibaatadooda adigu bood soo martay dhibaatada ma kaan marayno baan ku weeraa waqti wadankan bariya isleen jirteen baa jirtay sidaan isku leenahay asad uga soo baxday waan uga soo baxayna waana ka soo bixi karnaa waana iskaashan karnaa marka ninka loo dhiibo mas'uuliyad waa inuu horta gartaa inuuna ku helin khibradiisa iyo maxay hayday yaani afkarkiisa iyo inuu ku helin waa tahay mas'uuliyad Ilaahay u dhiibtay ka soo koona dadka Soomaaliyeed u dhiibtay faham taa haddaad garan weydo oo dollarku Ilaahaaga noqdo de marka ifna weelkuma leh aakhirana weelkuma leh runtii waa lagu la xisaabtamaya aakhir waa lagu la xisaabtamaya